السلام عليكم ورحمة الله. muddo dheer kadib oo kanaalka ka mashquulay kadib ayaan soo laabtay iyadoo ku soo beegantay kanaalka oo 100,000 oo qof ay subscribe siiyeen. marka kanaalku maadaama ay dad badani ku xiran yihiin ayaan waxaan ka cudur daaran inaan muddo ka maqnaa. waxaan ku dadaalay hadda kadib insha Allah in ugu yaraan usbuucii hal ama laba fiidiyoo soo geliyo hadduu Alla idmo. maalmahaana insha Allah waqtiga isu dhow ayaan fiidiyooyo soo gelin anoo u dabaaldegaya munaasabadan. waxaan barnaamijka maanta ku soo qaadan sida awood loogu yeeshay in la fasiro waxa ay maskaxdu ku fakarayso, korontada uu jirkeenu ku shaqeeyo, iyo waliba baranbarada midig iyo bidix meesha rabtid u leexin kartid ayadoo maskaxdeeda la kontaroolayo. balse marka hore sida la wada og yahay, maskaxda shaqadeedu waxa ay saamaysaa xubnaha jirka oo dhan. fiidiyoo hore ayaa waxaan uga hadlay sida maskaxdu aragga iyo hadalka u saamayso, oo waxa jira dad indhahoodu caadi yihiin laakiin aan waxba arki karin maadaama qaybtii maskaxda ee aragga ku shuqul leh ay jug ka gaartay. hadda fiidiyooga hore rabtid halkan ka fiiri. aan u gudbo qodob kale oo dad badan aysan ogeyn. maskaxdana waxa ay ku shaqaysaa koronto, oo neerfaha maskaxdu ka samaysan tahay waxa ay wax isugu gudbiyaan qaab koronto ama electric ah. unugyada jirkeena oo dhan oo neerfuhuna ka mid yihiin qaab koronto iyo kiimiko ah ayay ku wada xiriiraan. korontadaas ayaa waxa loo yaqaanaa bioelectricity. waxaa dhici karta in marka hore dadka qaarkii isdhahaan korontada aan naqaano oo guryaheena ku isticmaalno iyo korontada la sheegay unugyada jirkeenu ku wada xiriiraan waxba kama dhaxeeyaan. laakiin dadkii ugu horeeyay oo ogaaday inay xiriir ka dhaxayso labadaas koronto ayaa waxay ahaayeen saynisyahanadii qarniyadii 18aad iyo 19aad noolaa oo tijaabooyin korontada ku saabsan ku sameynayay xayawaano kala gedisan. waxaa ka mid ahaa saynisyahankii Talyaaniga ahaa Luigi Galvani oo sanadii 1781 soo qaatay raax bakhtiday. markaas ayaa wuxuu koronto ka saaray neerfaha lugaheeda mid ka mid ah. isla markiiba lugtii ayaa dhaqdhaqaaqday, halkaasoo ku ogaaday in korontadu saamayso neerfaha xayawaanada. tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay ayaa saynisyahano badan tijaabooyin ku sameeyeen noolayaal kala gedisan oo xataa dad dhintay ayaa tijaabooyin sidaas oo kale ah lagu sameeyay. sanadii 1903 ayaa saynisyahan Talyaani ahaa oo la dhihi jiray Giovanni Aldini waxa uu tijaabo ku sameeyay nin la dhihi jiray George Foster oo xaaskiisa iyo cunug u dhalay dilay. markaa kadibna dil toogasho ah lagu xukumay oo la daldalay. Aldini ayaa meydkaas waxa uu ku xiray koronto batari ka timid. meydkii ayaa murqihiisu dhaqdhaqaaqeen, ishiisa bidix ayaa furantay, gacmihiisa iyo lugihiisana way dhaqdhaqaaqeen. sanadahaas ayaa caan waxaa noqotay markii dadka dambiilayaasha ah la dilo in tijaabooyin noocaas oo kale ah lagu sameeyo. qarnigaas ayaa waxaa la qoray sheekada Frankenstein ee caanka noqotay ee filimada badan laga sameeyay. haddaba saynisyahanadaas ayaa waxay ogaadeen in maskaxda bani aadamku ay korontadu saamayso, iyadoo maskaxda naftirkeeduna iyo neerfaha ay ka samaysan tahay ay wax isugu gudbiyaan qaab koronto iyo kiimika. inkastoo ay waayadatan aan la samayn tijaabooyinkaas qarniyadii tegay oo kale, ayaa waxaa weli jira tijaabooyin xayawaanada iyo cayayaanada lagu sameeyo. shirkad Mareykanka jirta ayaa waxay iibisaa baranbarooyin iyo qalab yar oo koronto ah oo lagu xiray. qalabkaas oo app mobilka ku yaal fariin looga diri karo ayaa waxa uu awood ku siinayaa inaad baranbaradii midig ama bidix u leexisid. arrintaas ayaa waxaa sababay in baranbarada ay anteenadeeda u adeegsato inay wax ku dareento. tusaale ahaan markii anteenada derbi ku dhacdo ayay baranbaradu dareemaysaa oo ka leexanaysaa. haddaba shirkadaas ayaa anteenada baranbarada qayb ka mid ah goynaysa, waxayna dhex gelinaysaa anteenada inta ka hartay silig batari yar oo koronto dhaliya ku xiran yahay. haddaba markii siligaas anteenada baranbarada ku xiran koronto loo gudbiyo ayaa waxay u fasiranaysaa baranbaradu inay ku dhacday shay kale, markaas ayay baranbaradu isdhahaysaa ka leexo shaygaas. haddaba korontadaas ka timid siliga oo soo martay neerfaha ayaa waxay baranbaradu u fasiratay inay taabanayso shay kale, taasoo keentay in baranbaradaas la kontarooli karo oo bidix ama midig loo leexin karo iyadoo la isticmaalayo app mobilka lagu soo dejiyay oo fariintaas u diraysa qalabka ku xiran baranbarada. shirkadaas ayaa waxay qalabkaas ku iibisaa $150. haddaba baranbarada kaliya maahe waxaa jira qalabyo noocaas oo kale ah oo dadka lagu tijaabin karo. tusaale ahaan in muruqa gacanta dhaqaajinaya lagu xiro qalab koronto u gudbiya muruqa, taasoo keenaysa inuu dhaqdhaqaaqo. laakiin waxyaalo waxtar leh ayaa looga faa'iidaystay majaalkan ah in koronto ahaan amar lagu siin karo neerfaha iyo maskaxda. waxaana ka mid ah in lagula tacaalo cudurrada qaarkood ee maskaxda ku dhaca sida dadka suuxitaanka ama cudurka saraca ama epilepsiga loo yaqaan iyo cudurka Parkinsonka uu ku dhaco. waxaa isna jira qalabkan lagu dhajiyo dadka dhagoolka ah si ay wax u maqlaan ee loo yaqaan cochlear implant. dadkaas dhagoolka ah ayaa waxaa lagu sameeyaa qalliin dhegta gudaheeda la geliyo qalabkaas.
haddaba siduu qalabkan u shaqeeyo ayaa cajiib ah. marka hore waxyaalaha keena in qofku dhagool noqdo ayaa waxa ka mid ah in unugyo u eg timaha oo dhegta gudaheeda ku yaal loona yaqaan hair cells ay codka u bedelaan ishaaro koronto ah oo neerfaha maskaxdu fahmi karaan. haddaba unugyadaas timaha u eg haddii ay dhibaato gaarto oo ay baaba'aan, qofkaas awood uma yeelanayo inuu wax maqlo, sababtoo ah codkii looma gudbin maskaxda. hadduu codku maskaxdu u gudbinna qofkaasi dhagool weeye. haddaba cochlear implantigu waxa ay qabataa shaqada timahaas, oo codkii ayaa waxa loo bedelaa qaab koronto ama electric ah oo ay maskaxdu fahmi karto. oo haddaad qalabkaas adigu dhageysatid cod ma maqlaysid, ee qalabkaasi codkii ayuu waxa uu u bedelayaa ishaaro koronto ah oo ay maskaxdu fahmi karayso. qalabkan ayaa neerfaha maskaxda si toos ah ula xiriira oo u gudbinaya waxa ay maskaxdu fahmi karto, u fasirayana cod inuu yahay. Mareykanka kaliya sanad walba 60,000 oo qof ayaa qaliinka noocan ah lagu sameeyaa. haddaba arrintan ayaa waxay ku cadaynaysaa in cilmiga maanta la gaaray sida maskaxda loola hadlo oo si toos ah wax loogu gudbiyo. fiidiyowgii hore ayaa waxaan ka hadlay in saan oo kale la rabo in dadka indhoolka ahna qalab noocan oo kale ah oo aragga si toos ah maskaxda ugu gudbiyo la sameeyo. marka dad indhool muddo badan ahaa oo neerfaha aragga qaada uusan shaqaynayn ayaa waxay dhakhaatiir isku dayeen in kaamiro ay u gudbiyaan maskaxda si ay wax u aragto. haddaba barnaamijka kaamirada loogu gudbinayo qaybta maskaxda ee aragga ku shuqul leh ayaa waxaa fiidiyowgeedii loo bedelayaa koronto ama qaab electric signal ah, maadaama ay sidaas oo kale neerfaha maskaxdu wax isugu gudbiyaan oo ku wada xiriiraan. iyadoo dadkaas qaliin lagu sameeyey oo qaybta maskaxdooda lagu xiray qalab yar oo korontada u gudbinaya maskaxda, taasoo fududaysay in maskaxdu fasirto waxa ay kaamiradu arkaysay. inkastoo weli bilow yahay oo aan la gaarin horumarka cochlear implantiga oo kale. haddaba haddii maskaxda sidaas wax loogu gudbin karo, ma dhici kartaa in la fasiro waxa iyada ka yimaada? horta saan hore u soo sheegnay, neerfuhu qaab electric ah ayay wax isugu gudbiyaan, waana la diiwaangelin karaa qaabkaas ay neerfaha maskaxdu ku wada xiriiraan. oo qalabkan loo yaqaano EEG ayaa wuxuu awood u leeyahay inuu sawiro dhaqdhaqaaqa koronto ee neerfaha maskaxdu ku wada xiriirayaan. haddii marka awood loo yeesho in la fasiro waxa ay maskaxdu ku fakarayso, waxa ay keeni kartaa in horumar weyn laga gaaro qaabka loola xiriiro dad badan oo aan aragtidooda cabiri karin. tusaale ahaan waxaa jira dad dhaawacyo culus ama cudurro khatar ah ku dhaceen oo aan awood u lahayn inay hadlaan ama xubnaha jirkooda dhaqdhaqaajiyaan. haddaba haddii awood loo yeesho in haddii waxa ay ku fakarayaan la fahmo, waxa ay fududaynaysaa qaabka loola xiriiri lahaa dadkaas. waxaa jira marka teknolojiyad fududaysa arrintan oo loo yaqaan brain computer interface, oo ah qalab maskaxda lagu xiro waxay maskaxdu ku fakaraysana u gudbisa kombiyuutar, markaasna u sii bedela wax macno leh. nin la oran jiray Matt Nagel oo curyaan noqday kadib dhaawac la gaarsiiyey ayaa wuxuusan awood u lahayn in gacmihiisa iyo lugihiisa u dhaqaajiyo. markaas ayaa waxaa lagu tijaabiyey teknolojiyadan. sanadii 2004 ayaa qaliin lagu sameeyey oo qalab soo gudbiyay ishaarada korontada qaybta maskaxda qaabilsan dhaqdhaqaaqa ayaa la dhexgeliyay maskaxdiisa. kombiyuutar ayaa marka waxaa lagu tababaray inuu fasiro waxa ay maskaxda ninkaas khaasatan qaybta dhaqaajinta xubnaha jirka ay ku fakarayso. tusaale ahaan ninkan ayaa waxaa la leeyahay waxaad ku fakartaa inaad shay kor u qaadaysid, markaas ayaa la diiwaan gelinayaa ishaaraadka maskaxdiisa. haddana waxaa la weydiinayaa waxaad ku fakartaa inaad shayga midig ama bidix u dhaqaajisid. waxyaalahaas oo dhan ayaa la diiwaan gelinayaa oo lagu tababarayaa kombiyuutarka inuu fahmo waxa uu doonayo ninkaas qalabka lagu xiray. ninkan ayaa wuxuu awood u yeeshay in isagoo maskaxdiisa isticmaalaya uu dhaqdhaqaajiyo mouska kombiyuutarka oo emailadiisa furo, TV-giisa kanaalada uu halkaas ka bedelo, oo wax walba oo kombiyuutarka dhexdiisa laga samayn karo uu samaynayo isagoo fakarka maskaxdiisa kaliya isticmaalaya. wuxuu kaloo awood u lahaa inuu dhaqaajiyo gacan macmal ah oo prosthetic ah oo wax ku qaadi karo isagoo maskaxdiisa ka amraya. qaabkan oo kale ayaa waxa kaloo loo caawiyaa dadka curyaanka ah ee aan isticmaali karin laxaadkooda, iyadoo saynisyahanno badan ka shaqaynayaan sidii dadkaasi isticmaalaan maskaxdooda oo ay u dhaqaajiyaan gacan macmal ah ama ay kombiyuutarro ay ku hawlgalaan. shirkad la dhaho BrainGate ayaa wada tijaabooyin badan oo sidaas oo kale ah, taasoo fududaysay dadkii tijaabooyinka lagu sameynayay aan awoodda u lahayn inay dhaqaajiyaan xubnaha jirkooda inay isticmaalaan kombiyuutarro iyo gacmahaas prosthetic ah. saynisyahanno kale ayaa iyaguna awood u yeeshay 2019 in calaamadaha maskaxda ka imaanaya ee brain signalka u bedelaan hadal. inkastoo 100% uusan si sax ah u tarjumayn, ayaa haddana waxay ku guuleysteen inay kelmado la fahmi karo u bedelaan waxay maskaxdu ku fakaraysay.
teknolojiyadan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu caawiyo dadka dhaawaca ama cudurrada qaarkood ku dhaceen oo aan awood u yeelan ama awood u lahayn inay hadlaan. dadkan aan hadli karin oo tijaabada lagu sameeyay ayaa waxaa marka hore la tusayay 100 jumladood, markaasna calaamadaha maskaxdooda la gelinayay kombiyuutar u bedelayay hadal. natiijadii soo baxday ayaa waxay noqotay in 50% ilaa 70% marka dad cusub la maqashiyo ay fahmaan macnaha hadalkaas. haddaba fasiraadda waxyaalaha ay maskaxdu ku fakarayso ayaa barnaamijyo badan oo socda looga dan leeyahay in dadka curyaanka ah ama aan hadli karin lagu caawiyo. laakiin waxaa jira shirkado sanadahan dambe asaasmay oo ugu dambaysta raba in dadka caafimaadka qaba ay xataa ku xiraan qalab noocan oo kale ah. maadaama uu fiidiyogan waqtigiisu dheeraaday ayaa waxaan barnaamij kale ka samayn doonaa shirkadahaas iyo waxa ay tahay faa'iidada ama khatarta ka dhalan karta kombiyuutarada iyo maskaxda dadka oo la isku xiriiriyo. intaas nagu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono. nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi